kulanti wanaagsan khiyaarteena kusoo dhawaada tabin kale iyo sheekooyinkii ugu waaweynaa dunida kubadda cagta duurnimada barnaamijkayga waxaanu ku eegi doonaa isla markaana idinku hayaa saxiixiyo si rasmiya loogu dhawaaqay isla markaana kuwo kale la soo bandhigay Arsenal oo xogo dheeraad aan kaaga hayo maanta waxaa ka tegin kooxda kubadda cagta ee Blues Chelsea oo dunidii dhan bay u kufayso Chelsea ma aqaan anigu waxay dunida ma aragtay iyadoo ku aqrisay Chelsea dunidu waa laga yaabay Madrid baan soo mari doonaa Barcelona baa ka marnayn update-kii iyo waliba sheekooyin xiiso badan waliba odagii Hansi Flick ahaa muxuu ka yiri saxiixda baxaya iyo saxiix hadii jiraan iman doono markaasi soo dhawaada update-kii baa qayb ka ah umurihii ugu dambeeyay dunida kubadda cagta sidoo kale waan ku haynaa waa soo ururin doonaa channel subscribe saaro si share garay saxaabadeen la wadaaga aanu ku bilownay horta sida la socoteen goor dhaweyd waxay ku dhawaaqday ama Fabrizio isagu sheegay nadiga kubadda cagta ee Chelsea saaka waqti hore in lagu kala baxay ninkii ahaa Jackson kaasoo ku biiray kooxda kubadda cagta Bavaria heshiiskaas uu soo ku aaday wuxuu ahaa heshiis aan sahlanayn isla markaana unbelievable heshiis macquula sanadana isagu markaa safka kooxdaasi laga yaabo inuu sii joogo hadii lagu heshiiyo maadaama sanadkan 15 milyan lacag waali waay Ronaldinho ma amaah lagu qaatay mise Messi mise Ronaldo leedahay 15 milyan Chelsea waa laga yaabaa 35 milyan bay ku keentaa oo maleena ninkan 15 milyan ba amaha markaasi amaha la joogaya sanadka dambe waxa markaa leeyahay 80 milyan bay bixin doontaa Bavaria ninkan hadii qaadato horta dadka waa ku maadeysteen ninkan rekooradiisa markaad fiiriso kuwa badan oo Premier League laga amaanayo uu ka rekooro fiican uuna kaga wanaagsan yahay laakiin haddana saas oo kale wali umadii waxbay ka sheegaysaa adduunka cadaalad iyo ma laga hadlayaba laakiin waxa laga hadlay waxay tahay mid baan ku sheegay xilaraadka soo aadan ninkan wuxuu dhalin doonaa goolal ka badan goolasha Dilaabka hadda ay keentay uu dhaliyo kooxda Chelsea iyo rag kale oo kooxaha kala duwan waaweyn Yurub dad baa striker waaweyn soo qaatay iga qor ama Arsenal ha ahaato ama Man United ha ahaato ama ahaato wuxuu ka gool badnaan doonaa xidiga waaweyn oo hadda 60 milyan 70 milyan meel ku qoran muuqaalka degsameligo ama linkigiisa hada save garayso ninkan aniga taas baa idin leeyahay marka dadku waxa ka sheegay ninkaasi marka waa ka kooxda kubadda cagta Newcastle Gorowed waxay si rasmi u soo bandhigtay wiilkaasi Nicholas Volt ninkii ahaa kooxda kubadda cagta ka yimid wuxuu ku yimid Stuttgart rasmiyan nadiga kubadda cagta Newcastle ay ku biiray Ultimate rasmiyan ay soo ugu biiray 85 milyan ka hor lacag rekoora Stuttgart buu kaga imanaya waa club record deal ka hor hore maysan u dhici jirin lacag marka waalidan oo kala in nadiga Stuttgart xidigay ku iibiyaan marka long term contract waa qalinka uu ku dugay hadda iyo sheekada Isaac way marka Isaac sheekadiisii hadda loo jeesanaya maxaa marka Newcastle hadii ninkan ay heshay maxay ugu dhagantahay Isaac hal isweydiiyay idinka ma misaga dhagnaanaysiin macnaha wixii waa soo qaadateen soo wareejiyay baa leeyahay hadda Liverpool ayaa hadda diyaarinaysa marka dalabkii ninkan loo geyn lahaa dalabkii ninkan laga geyn lahaa miiska uu saaran yahay soo furo albaab waa furin albaabka dil yiraahdo hore bay ka taagantaa kaliya Newcastle baa la sugaya maadaama bedelkii ninkan ay ku dhawaaqeen saacadaha soo aadan si rasmi ah marka la tilmaamaya Isaac in Liverpool isagu noqon karo aad baana xogtu ay u sii kordhaysaa caawa ilaa galabta in wax uun ay soo socdaan marka aan kubadda ku mashquulsanahay miiska waa la saaray baa ka dhacaysa Isaac yes marka warka reer Liverpool dhigta bay ku hayaan Isaac ninka waxa uu ku dhibtoodeen si uu hayeen dhalo waa dhalan la ayaa marka caloosha Liverpool buu ku dhex jiray caloosha Newcastle marka ninka waa ka bixi laayay marka waan arki doonaa saacadaha soo aadan warweyn ayaa laga sugi doonaa kooxda kubadda cagta Newcastle oo Liverpool iyo Isaac shakadaas oo la kala goyn doono maadaama wiilkan bedelkiisa si rasmi ah nadiga ay ugu dhawaaqday Marco Goy sidoo kale saxiixan isaguna almost Crystal Palace ayaa laga sugaya oo Crystal Palace baa ku dhagan markaasi shakada ku saabsan ninkii ahaa Dani Ceballos xogaha laga helayo waa Ben wararka tilmaamay Juventus buu aadaya wararkaas waa soo baxay saacadii ugu dambeeyay oo laga hadlayay ninkan nadiga kubadda cagta Juventus wadal inay kula jirto oo ay rabto inay qaadato waa la beeniyay Fabrizio wuxuu leeyahay waxba kama jiraan waaye maadaama isagu ninka heshiiskii uu ku aadi lahaa kooxda kubadda cagta Olympique Marseille
uu fashilmay ama isaguba uu diiday aakhir saac isbedelay maankiisa bedelay waxa isbedel oo kale ma jirayo sidoo kale Bayt al-Malaki madridistayaashu waxa leeyahay ninkii Rodrigo ahaa isaguna baaqi buu sii ahaan doonaa waana sii joogi doonaa sida update-kii ugu dambeeyay tilmaamayo Rodrigo goes Bayt al-Malaki waa sii joogi doonaa meelna kama aadi doono saacadaha yar ee suuqa ka haray 48 saac ay suuqa ka haray dhowr iyo 30 saac ay suuqa ka haray meelna ma aadayo Madrid albaabkeedii waa la xiray خلاص closed way marka Bayt al-Malaki warkaas waa soo dhamaaday madridistayaashu warkoodu waa cad yahay Arsenal waxay rajeynaysaa Bukayo Saka waqti hore inay hesho Arteta mar kale uu ku celiyay rajadiisu inay tahay 7 toddobaad ilaa iyo meelaha in la qiyaasayo ninkan yani dadka qaarkood waxay tilmaamay 4 ilaa 3 laakiin ay ka badato ayaa hadda la tilmaamaya kadib markii la maqlay odaga markaasi Arteta marka xalkiisu ugu fiican yahay uu tilmaamay 5 iyo meelaha ka badan noqonayso laakiin sida hadda warkii ugu dambeeyay sheegayaan almost 6 toddobaad waa gaaraysaa 6 toddobaadna ma sahlana in laacibkan isagu ka maqnaado marka waan arki doonaa rasmiyan Milan ayaa soo bandhigtay wiilka cajiibka Nkunku Christopher Waka yes Christopher Milanello ayuu isagu noqonayaa naadigan la aasaasay 1999 ayaa hadda waxa lagu leeyahay rasmiyan u qaadanaysa canugan marka absolutely Barcelona war farxad leh baan idin hayaa waa wiilkii marka Gavi ahaa waxa la horta dhaawiciisu ma darna xaaladiisu waxa la bilowgii hore horta dhaawiciisu aad baa looga baqay waxa laga hadlayay muddo dheer ayuu isagu maqnaan karaya mana sahlanayn baa leeyahay warbaahinta oo dhanba argagax bay ka muujisay xataa Fabrizio wuxuu xiganay Sport 3 ama TV3 kaasoo isagu lahaa ninkan dhaawiciisu ma sahlana waa daran mar dambe warbaahinta Catalonia waxay sheegtay in dhaawiciisu hadda uusan darnayn oo kulanka soo aadan Felix baa laga weydiiyay waxa la yiri ninkaas waa daran dhaawiciisu maxaad ka leedahay war qorsheena kulanka Valencia inuu soo noqdo waa guud labada toddobaad ee hadda ninkan uu isagu dhaawacan yahay kadib waa soo noqonaya ninka macna xulkuma u diideyseen ma garanayo qorshe idinka soo hindisteen miya macna laakiin wuxuu leeyahay ninkan waxa uu yiri dhaawiciisa horta sidoo uga bogsado bay ku xiran tahay buu yiri laakiin shalay maanta isku fiirino aad buu u fiican yahay buu yiri marka waana positive marka waan sugi doonaa buu yiri ka waran baa leeyahay xidiga badan baa ka tagayay oo uu ku jiro Firmino ka waran xaaladiisa horta wuxuu yiri aniga wax walba oo umurahaasi waxay igula muuqdaan buu yiri kubadda cagti waxba kama bedeli kara buu yiri aniga laba cisho baa hartay suuqa kariibsiga xaaladeeduna wanaagsan tahay waan la hadlay Firmino ra'yigeygina waan u sheegay isagu waxaan u sheegay ani isaga bay noo ahaanaysaa dabcan marka qaarkii fikrada iska jira buu yiri waliba dadka qaarkii ee ku xeeran waxbay dhahayaan aragtiyo bay dhiibanayaan laakiin hore waa looga soconayaa buu yiri anigu waxaan diiradda saarayaa kooxdeeda Firmino xaalad wanaagsan buu ku jiraa bandhig wanaagsan buu soo muujinayaa xilaareedkii hore waa muujiyay marka asluubtiisu way ka socan tahay laacibiinta kale sidaas daraadeed waxa uu awoodaa oo aan aaminsanahay kooxdan inuu caawin karo Firmino waxa uu wili Mundo Deportivo xitaa waxa leedahay wuxuu ku dhagan yahay wili inuu masii joogo laakiin naadiga Chelsea haday keento dalab waaliya 100 milyan Chelsea way awoodaa inay keento naadiga dhaqaalahaas 120 milyan way awoodaa ka badan bay awoodaa 200 milyan bay suuqa gelin kartaa naadiga laakiin meesha la isku haysto yes waxa la isku haysto waa maxaa dhici kara marka naadigan markaasi lacagtaas ay bixiso marka waan arki doonaa warkii ugu waaweynaa saacadii ugu dambeeyay laakiin Hansi Flick iyo sheekadiisu xogtan baa la tilmaamaya Firmino iyo hadii uu baxay hadii kale waqtigooyii baan noo sheegi doonaa adama saddex share galay saacaddan la wadaaga meel kasta oo joogtaan update-kii ugu dambeeyay suuqa kala iibsigu wax badan oo kale oo ka cusub ma jiraan hadda waxa la tilmaamayaa in saxiix kala duwan suuragal ay tahay inay dhacaan saacadaha soo aadan laakiin wax walba ayaa dhici kara absolutely ma sahlana yani sugun yana ka degdegin Fabrizio kala goor dhaweyd waxa uu lahaa waxba dhici doona iyo waa kan hadda markaa fiirisid wiilkii ahaa Hansi Flick ninka Firmino buu soo kaga hadlayo ninkan isagu inuu sii joogi doono buu leeyahay marka waa suuragal wax badan baa dhici kara lafsadooda Arne Slotna waa ka isagu lafsadiisa
Fabrizio iyo transferka iyo markaas uu isagu ka hadlay warkan iyo arrinta ku saabsan sheekada specialka ee Liverpool isagoo markaasi dhowr kalmadood yiri isla markaana kalmadiisu waxay ahayd waxaan fikrada kama haysto buu yiri waxyaabo badan baa laga hadlaa laakiin waa inaad la socotaan buu yiri suuqa kala iibsiga Fabrizio kala socda buu yiri haddaad rabtid suuqa kala iibsiga anuu yiri marka wuxuu yiri waxyaabo badan qolka labiskii degdeg kubadda cagta isku bedelayaan buu yiri laakiin Fabrizio lagala socdo Fabrizio ninka koowaad ee caalamka markaasi ayuu isagu u noqday ninkan Jackson wuxuu isagu tegi doonaa maanta ayuu tegi doonaa waqti dambe 50 million loan ay lagu bixiyay wow record Moiskin waxa ay heshiis cusub u saxeeyay 2029 Moiskin nadii Man United ay raadinaysa moogtahay ninka isaguna Conrad Harder baa la yiraahdaa marka waa ka wiilkana waa la soo bandhigay absolutely marka Kobe Maino mar kale buu ku celiyay waa laba sac baa laga joogaa warkan Kobe Maino mar kale buu ku celiyay Manchester United markii uu hadlay Robin Amorim mar kale buu isaguna baxay uu tagay xafiisadda anigu waxaan rabaa buu yiri in la ifasaxo miiskan uu garaacan buu waa adigu garaacaya buu maxaad meesha ku haysaa anigu waxaan rabaa inaan baxay marka waa ka aad masatiin Sebastian Nevitz oo si joogay waa leeyahay ninkan 15 milyan baa lagu 15 milyan hadda ku heshiin ma sawa ana ma qali ninka hadda marka di Arabiyood 15 ku iibisiin ana ma qali iibsana mar sawa dikba sheegaysid marka anfacayno marka waa ka marka biswa marka dharkeena waxaan dhaqanaynaa maaliyadaheena maxaa yeelay ninkaas oo lagu 15 lagu iibinay maxaa ara marka waa ka Rasmus Hojlund already waa ka dhamaaday marka wararkii ugu weynaa dunida kubadda cagta way jiraan warar kale iska xan ah oo saacadii ugu dambeeyay la tilmaamayay oo transferku Real badan laakiin ma gaarsiisana kalsoonida heerka Fabrizio laakiin way jiraan suuqa kaliibsiga aad baa looga hadlayay arrintan update-ku aad buu marka la hadlayay arrintan waa ka Moiskin oo kale naadiga Nottingham Forest xidigaas IBS Town ku biiray almost Jose Mourinho Istanbul buu ka dhamaanaya marka dawaka wuxuu noqday Veltman 85 milyan ninka ugu qaalisan ee la soo wareegtay buu noqonaya most expensive buu noqonaya ragga oo dhan Elanga iyo Tonali iyo Gordon waa ka sara maraya Kobe Maino wuxuu rabaa still inuu baxo markaas sida update-ku ahaa warkii ugu weynaa dunida kubadda cagta ay ku wanaayeen ninkaasina waa ka gurigiisii ayuu marka saas uga wacdareynaya afar xabo garow nacnac camal inta ku dhagsaday marka tinta waa tidacday waa ka markaas qamiis ku weyn maaliyad baashi jacket ku weyn waa soo qaatay marka Barcelona UEFA waxay go'aansan doontaa bisha September haddii ay siinayso approve request Spanish Football Federation Villarreal iyo Barcelona Miami inay ku soo ciyaaraan kulan La Liga bisha December marka bisha September baa la qaadi doonaa suuq kaliibsiga marka uu dhamaado yani dhowr maalmood kadib umurtu degto inta kulamada xulka lagu maqan yahay laga yaabaa dhash inuu soo baxo warbixintaas yes or no baa la dhihi doonaa marka waa ka ma sahlana markaas 15 milyan waxaa sotaan Jackson ninka afraad buu isagu noqonay Morata Juventus Atletico ku aad 20 milyan xasataan sidoo kale mar kale 18 milyan baa lagu qaatay Atletico Chelsea ku siisay Lo Celso 16 milyan Spurs kana waa ka wuxuu noqonay ninka saddexaad ee loan afraad uu noqonaya ninka ugu qaalisan markaas meel waxay raadinaysaa ka war Gianluca Di Marzio baa sidaas ku waramaya Gomez update-ku sidoo ahaa Kobe Maino isaguna naadiga Napoli waa ku soo biirtay baa leeyahay marka isaguna waan arki doonaa Isaac Mir waxay leedahay waxay diyaarinaysaa fresh offer yes 130 milyan Liverpool waa odagu Isaac marka Mir waa Mir macquul waa Mir shabakad iska macquul ma gaarsana Fabrizio laakiin معقول على ذاي بقولي يسد ميلان فريش مركز كان كوي من كريا فاينل دي ساعة فاينل ما بهري بس ساعة هري بركو نكاس حالكو دلب كيسو على قاتي أدو ويا أنتوني حال كيسو مثلا هذا مسدين دا وديال سيشر كريه channel سبسكرايب سارو فلو دوبرتنا ملكستو باي باي